السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا بحث سعودال كدنيدا كنا سو دوادا استوديوها فرس فيديو برودكشن وأنا مرتكو استوديوها فرس فيديو برودكشن iyo saaxiibkayga Cabdirasaaq Axmed. Cabdirasaaq soo dhawow saaxiib. waa dhawahay saaxiibkii marna walaalkii marna ninka la tashto nin weyn nin xooggan ma sha Allah waxaan leeyahay shoode waan dhawahay sidoo kale to daawadayaasha waxaan u sheegaynaa inaysan hilmaamin kanaalka socdaalka dunida waxaa badan oo faa'iido leh ayaad ugu tagi doontaan insha Allah waxaan idin leeyahay marka saaxiibayaal soo dhawaada milkiilaha iyo ninka mas'uulka ka ah kanaalkaasi waa kana shoode wanaagsan nin xoogan aan ka maqlay waxaan filayaa saaxiibkeena waxaan ku naqaanaa dhanka ay maaragtay boxingka inuu maaragtay falaqeyn iyo ku sameeyo reaction hadaa arki jirteen maaragtay dumarkii oo la falaqeynayo iyo heesigii oo la falaqeynayo ninkan uu iska tuuray ninkan saaxiibkeena wuxuu aaday dhanka UFC WWE iyo waxyaabaha inuu maaragtay inoo kala falaqeeyo ciyaartooyda si ku kala wanaagsan yihiin tacticalka ciyaarta loo kala ciyaaro qaabka la isku kala reebayo haddaba aan soo dhaweynay ninkan saaxiibkeena ee maaragtay waqtiga badan ka galay aad waa dhawahay soo dhaw saaxiibkaygiyo waxaan ku leeyahay horta horeeto ciyaartani UFC-da waqti badan aan daawanaya dabcan dad waxa laga yaabaa ka badan intaas iga sii wareey daawanay laakiin aniga majority-geeda ama macnaha waqtiga la dhihi karo waa soo bilaabo daawashadeeda oo aad aan u xiiseynayay ciyaaraha inta ugu badan la socon jiray waxa weeyaan 2014 meelahaas weeyaan 14 ilaa hadda aad ayaan u daawadaa waxaan leeyahay marka ila mid naqdo oo kale ka badan ihsan ka badan weeyaan waa socdaalka dunida waa socdaalka dunida waxaa ku dhownahay socdaalka dunida bishka socdaalka dunida hadda waxay naga daawanaysaan socdaalka dunida maxamed shood adigana sidoo kale waxaa sidoo kale ku hambaleynayaa 10k aa gaartay ama 10,000 aa gaartay ka badan ku rajeynaynaa insha Allah 100k iyo 1 million ka badan ku rajeynaynaa inaad gaartid marka waxaan ku leenahay keep going waxaan leeyahay daawadayaasha ama dadka ku xiran ama dadka jecel dhamaantiin adin kale waa wax aad loo xiiseeyo ma fiicno in dumar iyo waxyaabo yar yar iyo meelo yar yar iyo ummad isqa qaawinaysa iyo dad iscaanay wax si reaction laga bixin wanaagsan waxaan leeyahay marka saaxiibkeena fursad baan ku haysanaa si aan ugu korsano wax yar ka hor muuqaal oo reaction ka bixinayo waa maaragtay kor kala socday saaxiibkeyga waxaan jeclahay inaa wax naga fahansiiso qaabka maaragtay waxa sharxaysa ilaa isdhex qaab maaragtay in lagu kala badiyo ciyaarta aad qaabka lagu kala badiyo inaa noo kordhiso si fiican masashode waxaan horta horeeto aragnaa inta ugu badan hebel la dagaalay ciyaartana hebel badiya aragnaa kala badinta laftirkeeda saddex nooc ashuro maadaama ay saddex nooc ay tahay saddexda nooc kuwaad waxa weeyaan knockout nooc labaad jiro oo loo yaqaano waxa la yiraahdo submission iyo nooc kale oo saddexaad oo by decision ama decision hada muuqaalkii u dambeeyay aan falanqeynayay ciyaaryahanka kulanna waxa ay shan kulanna waxay ahayd submission lix kulanna dabcan waxay ahayd knockout sagaal kulan oo kamidana wuxuu ahaa decision dabcan ciyaaryahan adag baa ka falanqeynaysay qaabka ay sii kala yihiin anagoo knockout markii la dhaho kubadda cagta oo kaleeto knockout waxaan u naqaanaa kulan oo maaragtay kala reebta in la ciyaaro naadiga badiso oo maaragtay badiso maaragtay gudbayso naadiga kaleetana way haraysaa si wacan marka knockout-ka fiirka muxuu yahay knockout-ka fiirka markii aan tilmaam yar ka bixino knockout-ka waxaa loo yaqaanaa laba ciyaaryahan oo dagaalamaysay ayaa mid kamida waxa uu sameynayaa ka kale oo yad kulul ku dhufanaya yadaas kulul waxay ka imaan kartaa jilibka feerka sidoo kaleeto haraantida waxaas oo dhan qofka ciyaaryahanka yad oo dhulka ku dhacay sababtay inuu ama suuxdin oo kaleeto oo kale ama yad oo la dhacay oo uusan dhaqaaq dambe oo sameynin yadaas waxaa loo yaqaanaa ama dagaalkaas qaabkaas ku dhamaaday waxaa loo yaqaanaa wala soo kici waa ninkii knockout loo yaqaanaa si wanaagsan dagaalkaas inta badan waxaa tusaale idinku soo qaadan karaa muuqaal kamid ah muuqaalada YouTube-ka ku jiro waa arki kartaan hebel ninkan ay yiraahdaan Masvidal ninkaas wuxuu sameynayaa mid kamid ah ciyaaryahanada oo la dagaalamaya nagaadidiisa markaa soo qaadatid uu soo boodaya ciyaarta waliba 5 ilbiriqsi socoto ee dhamaan doonta ciyaartaas 5 ilbiriqsi kaliya ninku uu ku gaadaya uu ku soo ordaya ninka masaan uu soo foorsana meelahan camal jilib uu qaracay ninkaas iyo surka wixii taa maqan isagu qaracay marka asal ninkaas
xaalad qatar uu galayaa meeshii ku dhamaanaya naf yara ma bisad ba ma jiil ba ma aad shan ilbirqsi qofka gacan ba moosa qaadin badaba waa the first step in fight oo ku dhamaaday skorkaas oo haystaan ninkaas shan ilbirqsi aad diiwaan gashan ninka out waa isla garanay ilaa laba qaab kale tan sheegaysa si wanaagsan qaabka labaad oo kaleeto waxaan su'aal soo qaadan karnaa Khabib iyo Conor. Khabib iyo Conor markaan daawaneynay waxaan arki karnaa ciyaartii inay waqti soo socotay Conor daalay kadib saaro lagu qabtay saarada sacabaarka lagu hayay tirsigaas oo iska tiriyay waxaa loo yaqaanaa submission loo yaqaanaa ama sidoo kaleeto laba ciyaaryahan oo cabaar muddo dagaalamayay oo ama mid lugta la maroojiyay ama mid sidoo kaleeto adiga ciyaaryahankii mid kamida la qabtay oo meel xun la qabtay oo kadibna oo garaacday ayaa waxaa loo yaqaanaa submission ciyaar aan af Soomaaliyeed waxay noqon kartaa meel isdhiibid submissionka waa isdhiibid haddii dabcan si kooban aan saarno Soomaaliga haddaan tusaalahana ka bixino waa ciyaarta Khabib iyo Conor habkay u dhamaatay badan inay daawadeen jeclaa Khabib iyo Conor aniga xataa oo aad maaragtay fiirka u xiiseeyay aad ugu xirneen ciyaartaasi waa dhasii indhaha buu taagay aad tusaalaha u fudud marka waxa la karaa midaas maxaa soo haray decision waxa weeyaan waxaan dhigi karnaa laba ciyaaryahan is qabatay muddo dagaalamayeen si u dagaalamayeen waxaa jiro round 1 round 2 round 3 round 4 5 ilaa 5 ugu badan UFC waxa la ciyaaro marmarka qaarna saddex ciyaaryahanada qaar iyo haddii aan dhaho filiyada qaar marka wareeg koowaad way dagaalameen mid fiir badnaa wareeg labaadkii mid kale fiir badnaa wareeg saddexaadkii mid kale fiir badnaa laakiin ciyaarihii waxay ku wada dhameysteen wareegyadii oo idil ayadoo midna uusan qatar gelin midna uusan isdhiibin ay ku dhamaaday ma dhicin submissionkina ma dhicin ciyaarta noocaasa maamulka ama UFC-da tiimkeeda waxay sameynayaan way qiimeyntaas ciyaarta ninka guusha la siiyey ayaa waxaa loo yaqaanaa qofkaasi inuu by decision ku qaatay oo go'aanka maamulka inay bixiyeen inuu ku qaatay marka ciyaartaas waxaa loo yaqaanaa saas ku dhamaatay ama guusha qofka noocaas oo qaatay ay by decision loo yaqaanaa ninku fear of line ku aadin inta oo qabtana ma isdhiibin marka waxay noqonaysaa labada nin waxaa la dhihi karnaa laba nin oo maaragtay iska agdhow xoog ahaan inay yihiin dadka si wanaagsan ciyaarahana inta ugu badan waa la arkaa waxyaabaas waa la arkaa in laba ciyaaryahan aad maaragtay isugu xiisa qabo intay is qabtaan say u dagaalamayaan labadoodaba xitaa cidnama ogo inay guuleysatay cidnama ogo waxaa arkaysaa marmarka qaar nin fiir badan aan ridin laakiin labada xabo uu rido ninkan dhaawacyo badan gaarsiisay laba xabo aad u kulul tuuray oo ama isha oo isha korkeeda oo kale kaga daqray ama hoosteeda kaga daqray wax noocaasa inuu guuleystay loogu qeexo marka by decisionkaasi waxyaabaha aan ku xasuusto waxaa kamid ah ayadana Stephen Thompson Stephen Thompson wax noocaasa loo yaqaan ninkaas iyo nin kaleeto Tyron Woodley loo yaqaan waxay ciyaaraan middleweight ka ciyaaraan labadaasna hadirtaan middleweight ka ciyaaraan miisaanka dhexaadka u fahmay si wanaagsan 80 iyo above kilogram dadkaas ciyaaro middleweight 80 kilogram qofka ah dhexaad taagan waayo ma gaarsiisno ayaga light heavyweight ma gaarsiisno heavyweight kana ma sii gaarsiisno darajada ugu weyn horta waa heavyweight ko miisaanka aad ku culus heavyweight ko waxaa ka hooseeya heavyweight-ka light heavyweight kuwa loo yaqaano waxaa kaloo jiro kuwa kaloo loo yaqaano lightweight waa meesha uu champion ka yahay Khabib kuwa kaleeto waxaa jiraan ayagana loo yaqaano featherweight waa badan yihiin marka ciyaarahaasi waxaa lagu miisaamaa ama lagu measurementiga lagu xisaabayo measurementigeedu waxa weeyaan weight-ka weeyaan hadda tusaale ahaan ciyaaryahanka hadduu noqdo 61 kilogram ilaa 66 kilogram wuxuu si toos ah uga mid yahay ama maaragtay oo ka tirsan yahay meel kale oo san aadi karin waxa loo yaqaano featherweight ninkan hadda aan falanqeynayno oo kale featherweight ku ka tirsan yahay 66 kilogram hadduu 67 noqdo wuxuu u imaanaa Khabib iyo imaanaa qolo kale oo gudbaa miisaankiisa hadduu sii kordho qolo kale sii gudbaa qolo ka sii adag qolada hadduu hoos isku soo dhimana qolo